baytari ayaa uu wadnihiisu ku shaqeeya waa mid ka mid ah xubnaha halbowlaha u ah noloshiisa balse aan jidhkiisa ahayn qof walba muraadkiisa macsi lahayn ayaan uga baryayaa inuu Ilaahay siiyo. Ibrahim Maxamed Yuusuf waa 53 jir waayeel ah oo ku nool magaalada Hargeysa xilligani waxa uu hore u soo noqday dhakhtar dabiiba xanuunada guud walow aanu xilligani ku shaqaynin balse waxa uu 3 sano ee u dambeeyay wadnihiisu ku shaqaynayay baytari. Dr. Ibrahim Maxamed oo aanu maanta booqanay ayaanu kala sheekaysanay qisada ka dambaysa in wadnihiisu ku shaqeeyo baytari iyo sida noloshiisu ay ugu tiirsan tahay baytarigaasi ogolaanshaha Alle kadib. Ibrahim ayaa ka warbixiyay qisada noloshiisa bedeshay sida ay ku timi waxaana uu noo sheegay in muddo hadda laga joogo 5 sanadood ay labadiisa waalid galeen shil naxdin leh oo ay ku geeriyoodeen shilkaasi. naxdintii shilkaasi ka dhalatayna ay dhibaato soo gaarsiisay wadnihiisa muddo yar kadibna wadnihiisi noqday mid hawlgab ah halkaasi oo sanadkii 2017 ay dhakhaatiirtu ku rakibeen baytari ka shaqaysiiyo wadnihiisa. waa kan isagoo ka sheekeynaya arrimahaasi. anigoo aabo iyo hooyo oo aan safar u saaray ayaa xanuunka gaarigu la dhacay gaariba la dhacay labadoodii iyagoo deela 4 saacadood 5 saacadood meelaha iga maqan ayaa geeridoodii lay keenay aaskoodii markaa naxdinta naxay ayaa xidid ka mid ah wadnaha wax noqday sidaas ana markaa Ilaahay amarkiisa inan ba markaa ay caawisay oo reer Djibouti inantaas ay caawiso ciidamada Faransiiska Djibouti ii geysay kuwaas markaa ay daawasay kuwaas markaa qaltiinka igu sameeyay baytarigaasna wadnuhu ku xidhay ku rakimay intaan aad arkaysan buurnidan iyo waxna waa barar maaha wax yani natural maaha waa bararkaasana waxa koskarinaya adapterkan wadnaha ku xidhan kan waa kii sare kan waa ka ku sareeya ee ila shaqeeya hadda B2 taagi B2 de wuxuu ku dhamaanaya ilaa Z ayuu ku dhamaanaya intaasna wata وانت دي هذا أركيسان أدبتر كجودا ودنو كحرية بترجع ما بترجع سره كون وحو عاونه قراعي بترجع أيو عاونه حالدي الصعود كان دب ما صعون كريو حتى صعوده وين كا استعمالها أكسجين هان أنو استعمالها تاسن نقص كمركو يقبته أنو صعونيه أنت استعمالها نقص كي عاونه سيوصل بعضه تنكرنا وحنوسته إن تمبريتشرك أنكويجو يا هاد بس نقص كيجا هاد بمشو مريو أيو لصعدة مركا كلنا نقص كم بس كيجو سارة ومركا صعونيو أي نقص كي قبنيا وانكابينيا مركا وقف عفرة بدن يجي وحبان سمينيا كبادي كاسان مركا استعمالو نقص كيجو سبودو سيدي قف حيق حيو كله ayaan naqasku iga soo boodaya. dhanka kale Dr. Ibrahim Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in la joogo waqtigii la bedeli lahaa baytariga ay noloshiisu ku xidhan tahay oo waqti dheer shaqeynayay. inta Soomaaliya ku hadashay walaalaha muslimkaaba iyo cid kale bay la kaashan karaan ay waxaan ka codsanay inay soo caawiyaan dad nin dhibaataysan Allah dhibay dad wana imtixaan أنا امتحان كاس إلهي هيفضيو إذا كنا إيش هكذا صارت أن إلهي ملك ونقص وحكي ونقص أن إلهي ذيك بدلو مراد كنا نقول بمراد خفول بمراد كسان مع سلاين أي نقبري أي إلهي سيو. nolosha Ibrahim waxay ku xidhan tahay baytarigaasi oo sheegay in lagama maarmaan ay tahay bedelidiisu balse aanu isagu awoodin qiimaha uu ku kacayo waxaana ay noqonaysaa in noloshiisu ay taale kaseko ku xidhan tahay
sida ay bulshadu ugu gurmato. Khadiir Qowdhame, CBA TV.